mas-uuliyiinta rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Soomaaliya iyo kuwa rugta ganacsiga iyo warshadaha ee wadanka Turkiga ayaa magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga ku kala saxiixday heshiis ganacsi waxaana goobjoog ka ahaa danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya wadankaasi Turkiga. warkaasina waxaa akhrinaya wariyayna Cali Cabduqaadir Cali. kadib kulamo maalmihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga loogana hadlay maalgashiga Soomaaliya ayaa gabagabadiisa laga soo saaray qodobo lagu heshiiyay ee ku wadana iskaashi dhanka ganacsiga ee dhexmara Soomaaliya iyo Turkiga. goobta heshiiska lagu kala saxiixanayay waxaa ku sugnaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Cabdullaahi Axmed Cali, waxaana heshiiskaasi kala saxiixday gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabayre iyo kan Turkiga Nuuruddin Osdabir. mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay mid laga soo shaqeeyay isla mar ahaantana ku aadan qodobo ay ka midka yihiin maalgashiga Soomaaliya, wada shaqaynta ganacsiga iyo arrimo kale oo muhiim ah, waxaana tan ay ku tusaysaa horumarada uu ku tallaabsanaya dalka Soomaaliya. danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga oo goobjoog ah madasha kulanka lagu kala saxiixanay heshiiska ayaa wuxuu tilmaamay in heshiiskan uu yahay mid taariikhi ah, horseedi doonana in ganacsiga Soomaaliya uu horumaro maadaama dhaqdhaqaaq dhinaca ganacsiga ay isdhaafsanayaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa Turkiga. ganacsatada Turkiga ayaa hadda waxa ay aad u danaynayaan inay howlo ganacsi ka bilaabaan gudaha wadanka Soomaaliya maadaama dalka Soomaaliya haatan uu dib uga soo kabsanayo marxaladihii uu soo maray maalgashina lagu samaynayo dalka. sidaana waxaa sheegay mas-uuliyiintii ka qayb gashay kulanka. danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalkaasi Turkiga ayaa waxa uu dhiirigeliyay ganacsatada Turkiga inay wadanka Soomaaliya maalgashi ku sameeyaan si horumarka loogala shaqeeyo ganacsatada Soomaaliyeed. danjiraha iyo mas-uuliyiinta kale ka qayb gashay kulanka ayaa intaasi kadib waxa ay booqasho ku tageen rugta ganacsiga ee warshadaha dalka Turkiga iyagoo halkaasina ku soo arkay warshado badan oo halkaasi ka howlgala isla mar ahaantana u kuurgalay wax soo saarka dhinaca warshadaha dalkaasi Turkiga iyo horumarada ka jira. Cali Cabduqaadir Cali, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.